ciidanka kumaandooska danab ayaa gacanta ku dhigay keedkii ugu weynaa qaraxyada al-shabaab ee gobolka Shabeellaha Hoose kadib howlgal qorsheysan oo kumaandoosku ay ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada Kuntuwaarey ee gobolkan Shabeellaha Hoose. ciidanka oo helay xogta keedka qaraxyadan ayaa dhowr jaah ka galay xaruntii lagu hayay, waxaana halkaasi loogu tagay horjoogihii mas'uulka ka ahaa iyo maleeshiyaad kale oo qaar nolosha lagu qabtay, kuwa kalena la dilay markii ay isku dayeen inay ka baxsadaan ciidanka danab. ujeedka howlgalkan oo ahaa ciribtirka argagixisada iyo fashilinta dhagarta cadowga itaalka daran ayaa waxaa lagu soo qabtay waxyaabaha qaraxyada laga sameeyo sida kiimikada iyo hub fara badan. taliyaha guutada 16aad ee kumaandooska danab gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalig Maalin oo xogtan howlgalka la wadaagay idaacadda codka ciidamada qalabka sida ayaa sheegay inay kordhin doonaan howlgallada qorsheysan ee lagu burburinayo goobaha kooxda al-shabaab ay ku dhuumanayaan kana soo abaabulaan falalka guracan ee shacabka ay ku dhibaateeyaan. kumaandooska danab ayaa sare u qaaday beegsiga kooxda argagixisada ah ee al-shabaab oo wajahaya tabardarro baasan, taasi oo ka dhigan in la joogo dhammaadka kooxdan dhiigi cabka ah. Cabdifataax Akhyaar, warbaahinta codka ciidamada qalabka sida degmada Kuntuwaarey ee gobolka Shabeellaha Hoose.